soo dhawaada waxa wadaad iyo rootiyadaydi rootigaas iyo burkaas macaan baan sameeynay kani waa burkii macaanayo badanaa dadku bay iska sameystaan marka laba gabdhood baa maanta aan waxaan tusinayay dadku waxay u baahan yihiin in la tusiyo bas iyo mashiinada cidii ka caawin karta qofka shaqaysanaya way aad bay maaragtay ugu baahan yihiin dadka Soomaaliya jooga rootigan macaan ay ka sameeyeen hal mar baan tusay maalin hore waxa ay qof walba wixii hal mar la tuso inuu ku soo celiyo iyaga bay rooti fiicnaaday xawadaad luuqa la gash marka waa kana waa rooti maahin burka macaan buu ahaa rootigaana waanu sameynay waa kan waa iska rooti burkaas dafoornadan gelinay burkii macaan anigu aan shiilayna korban ku shiilay laakiin ayagu hoos begelay rootigaana aniga iska duudu waxa waa afaaraygi soo dhawaada qofkii ganacsi yar haysta waxyaabahan rootiyadan yar yar aad bay u anfacayaan Soomaaliyana runtii aad bay hadda u horumartay laakiin qalabkiiba waxa laga yaabaa qofka xooga inuu ciilo sida foornado kale iyo mashiinka wax lagu qasay iyo xaas aniga badan mashiin ma isticmaalo gacanta ku qasaa waayo maadaama dad hadda wax baraysa waxa ugu fudud oo qofku mar walba heli karo waa loo sameeyaa waa kana hadda ayaga sameystay intaan ayaga sameeyay waxa macaan ay dusha uga shubayaan xataa gacantooda ku sameysteen dadku xataa fikraday hayaan qofkii isla waxba taqaana qofka uu isla wax bar asaga laftiisu wax ka baranaya aniga macaankan inaan soo gadmay inaan sameeyo ma isku day jirin kan iga gubteen aniga leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hooyooyinka iyo gabdhaha la caawiyo